نجح واكنا هي challenge-gaaga yaa waa kusoo furi maanta kaama soo daahina ku dhahay hal maalin le kaa maqnaa bis soma naan recipe cashirkan maanta waxaa iigu soo challenge gareysatay Najax Kitchen and Beauty walaashiina soo booqda waa kana markaa soo dhameeyay sidaan kusoo baxday aad u jeediin maasha Allah qurux macaan caraf yaa inta buu isku darsatay marka waa sameysanaynaa sidaan u hagaajistay iyo iyadana sidee u hagaajistay hadaa rabtiin inaa aragtiin janaalkeeda taga soo eega Najax Kitchen and Beauty ayaa ku qoran linkigaagana hoos waa idin soo dhigi doonaa insha Allah marka alaabtan sidee iyada u sameysay camal u sameynaa insha Allah ayada igu soo challenge gareysa Soomaa marka halkan waxa ku soo cabirtay bur koob iyo bar oo bur ah waxa kale oo ku soo darsaday baking powder qaadada halfkeeda iyo wax yar oo baking soda ah loo baking isticmaaluna baking soda iyo baking powder labadaas isticmaalay marka iyadana labadaas isticmaashay hadaa rabtiin iyada u sameysay ina aragtiin janaalkeeda taga soo eega insha Allah marka qaado iyo baro oo sokor ah ayaan ku darsaday hadaa sokor badan jeceshahay waad ka badsan kartaa intaan hadda anigu ku darsaday wax yar oo cusbo ah ayaan ku darsaday waxa ku qasanaynaa koob biyo qandac ah insha Allah ayada yoogada ku dartay marka aniga hadda yoogad guri iimayaalo ina degtanay subaxnimo way marwo marka waqtigan sameeyno subax buu ahaa quraaca ahaana oo talgalay ina oo degtani waan ka yara caajisnaa ma fahanteen marka cidi yoogad guri u taalaha ku darsato yoogad laakiin yoogad laan caadi waaye ma fi mushkila marka aad qasaysaa waxaan loo baahan yahay inuu noqdo mid jileec ah oo gacantaada ku dhadhago waxa ku soo darsanayna saliid qaadi iyo bar oo saliid ah si fiican ayaad u cajmaysaa gacanta inay ku dhagdhagtaa loo baahan jileec ay noqoto waa markaasna si adiga rabtay si ka fiican ay ku soo bixisaa ujeedina oo maleena si fiican ayaa soo xashay marka hadda wax yaraad meel dhigaysaa adiga 15 daqiiqo 20 daqiiqo hadba adiga jaanis inta u heli kartid ayaad meel dhigaysaa laakiin wax oo leewad ay ku madarin baking powder iyo baking soda daas ku daray iyo sokor iyo cusbo iyo saliid iyo biyo qandac inta ayadoo yoogada ku dartay aan yoogad ku madarsan marka had waa jarjareena afar qayb ayaan ka dhigaynaa insha Allah si yar ayaad u jarjaraysaa marka wax yara meel markii ko aan qasay isla markii sidaan la u jarjaray wiil meel ma dhigin hadda la meel dhigi rabaa marka intee iiga soo yara huureyso 15 daqiiqo 20 daqiiqo waxa si hagaajisanaynaa wixii lagu cuni lahaa insha Allah ayada laakiin kuma soo darin wixii lagu cuni lahaa aniga hadda waa ku darsaday waan idin ka sii faa'iideynano insha Allah wax yar oo iska easy ah waay oo faasuliya waxaana magac kale uma aqaani waa fuul digirtaana isticmaalo yariishta oo yellow ma ahan kan yellow ma ahan kalarkiisa ay maqan magaciisa faanta ma laha waay kan yellowga ah weyn waay ma fiicna ciyooni ma karaayo kana ciyo karaayo isku dhadhan waa isku laakiin way ka kala weeyeen ma oo kan yariishka waa kan hadda aan isticmaalo midka weynna hadaa rabto sameysan kartaa yaanya hadda waa yaanya si dalcimo waa asiga hadaayay saar wax yar loo saarnaa biyo karaano saas aan ku jeclaaday kan yariishka digirta yariishta waxa ku jeclaaday ciyo kareysaa mid weyn ciyo karimeyso marka yaanya soo dalcay isdalac bilaash amal leelo dalcaa yaanyadan bashashku ilo markii soo yara shiilmatay yaanya ku soo daray iyo bisbaas hal xab bisbaas weyn ku soo darsaday
cusban waa kusoo darsaday iyo maraq digaag. Kadibna fuulkii aan soo yara kariyey oon soo qaadada xitaa hadda ku walaaqdid asigaa biska jawaayabo xitaa jijibis uma baahnaba kan yaryariishka. laakiin diirta weynta waxay u baahan tahay inaad jijibisid, ma fahamteen? marka ayadani waqti badan qaadan mayso, saasaan ku jeclaaday. markaad waa daboolaa insha Allah koo ilo markay soo yara badbado ee isdhexgash yaanyada iyo digirta. markaas barbarooni aan ku darsaneynaa, waan degsaneynaa insha Allah. kistaas yar la idin la wadaagay idinkuma dheereenin, ma fahamteen? cajalada waan soo yara koobay. marka waxaan rajeynaa bilaaw ilaa ay dhamaad inay ila joogtiin idinkoo mahadsan. markaad waxa u soo laabanay burkii oo yaalay 20 daqiiqo in ka yar. waan fidineynaa si dhudhuwana loogu talgal, ma ogtahay inaa loo fidiyo. marka sida ii qabta u fidiya aniga hadaba way dhudhuwantahay, kan xitaa ma xumaa. markaa fidisid tuun aad marinaysaa burka, ifahaniya. markaa fidisid toona marinaysaa, kadib kabsar caleenta saaraysaa, kadib hal mar kale ku fidinaysaa, kadib dhinac kaleenta urogaysaa, biyaad marinaysaa, taa wax qabsanayso ayaad saaraysaa. kadib gaas markay sidaa ay usoo karto waa gedinaysaa taawada, gaaskaad hoos afkiisa aadinaysaa. markays hadda waa arkaysiin way soo yara bislaatay. biyaha waxaa loo marinaa si ay taawada ugu dhegto. taawadan tii muufada ku duwanayo waaye, muufada la gedinayo oo dhuxush lagu dubto. gaaska xitaa waa lagu duwan karaaye dhuxusha ku macdaa. laakiin marka wax yar oo blue baan marineynaa, wax yar blue baanaad marinaysaa ama suuq wixii ku yaal ama batar, ma fahmino? marka hadda midii labaada soo kariyey waa kanaa u jeediin, idin lama wadaagin sidaan u fidinaayay. sida kii hadda camal la u fidiyey waqtigaasii dheeraanaya ma aho hadda ku kala idin la wadaaga. laakiin sidaan u fidinaa kii kuwa boobsiisa ka dhig laga yaab dadka inay si fiican ay soo arkin misana u fahmin. midaan kala hadda fidsaneynaa insha Allah sidaas ula socda. waa fidinaysaa, toona marinaysaa, kabsar caleentaad saaraysaa, haddana waa ku dul fidinaysaa mar labaad ku dul fidinaysaa, waad rogaysaa. markaas biyaad gadaalka ma marinaysaa, taawadiyo dab ku saaran oo yara kululaatay ayaad saaraysaa. taawadu way qabsanaysaa, ma ogtahay? kadib markay soo waana gaabinaysaa gaaska markaad oo dubaysid yaa afaarahaan si ciyo ay u bislaato. li'anno bur waay ma aho haddii gaas ku dheeraysid ciyo way kaa gubanay, laakiin ciyo kuma bislaanayso, wayna gubanaysaa dhexdan ceeriin ka noqonaysaa. marka sida aan hadda afka idinkugu sheegay ayaan u hagaajinayaa saa u jeediinba. toontaa soo saaray aan soo mariyay, toonta waa soo tumay. kadib aa kabsar caleenta aan soo saaray, wax yaraan ku fidiyey si ay ugu dhex gasho. waa gedinaysaa, kadibna biyaad marinaysaa. aada u jilcantahay burka, ma arkaysaa? burka jileecaasaa loo baahan yahay. haddii sidaan burkaaga ahayn waxbaa kaa khaldan, jileecaasaa loo baahan yahay. markaa qasaysidna baking soodhada ha ka badinin, far iyo suur lagu darsafo. wax yar hadba inta adiga samaysanaysid burka qiyaastiisa lagu darso, iska badinin. marka wax yar oo biyaan aan marmarinay, kadibna taawada saaranayna insha Allah. biyaha waxaan u marinooyay waxay tahay taawada inay ku dhegtaa u baahanahay, ma fahamteen? li'anno waa gedi rabaa soo maaha, gaaska afkiisa aadin rabaa, saas daraadeeda biyo u marmariyey ani. waa soo gediyey hadda. markay soo yara bislaato haddana waa soo rogaysaa. blue band soo marmariyey, maasha Allah. markaa soo dejiyey sidaan quruxda badan ku soo baxday aad u jeediin, inaba caadi ma ahan yaa. maasha Allah, aniga waan ka helay run ahaantii. Najax Kitchen and Beauty waan soo furay challenge-geeda. ramadaankan waad aaga faa'iideysan kartiin yaa asxaabta. ramadaanka afur waad ka dhigan kartiin afaarahaan. afurka aada ugu fiican yahay, waad dhex gashan kartiin. maasha Allah. walaalaha waxaan ka codsanaa inay ii sii share gareeyaan fiidiyogan, wuu gaaban yahay. waana mahadsantihiin intaad waqti ila qaadateen. intaan next video ka gaareen waxaa idinkaga sii tagaa khayr iyo caafimaad insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hanaka ilaawi inaa ii sii share gareysid adigoo mahadsan.